السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفتحي بكاعو ودل إيا دبد بيدين كالسلام يسا ومدري جبوتي waxa salaamaya caaq Ismaaciil waxa salaamaya Itapaqalel waxa salaamaya dawladda dhammaan ba salaamaya salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu warkiyo baxardaada isagiyo boqshadaysan raadiyoyna bukaaco hal laga dhageysto waa qaylo dhaan waa badbaado qaran waa dhilooyin waa dhacdooyin joogta oo soo noqnoqday siday ballantu ahayd caaq Ismaaciil waxaan ku bilaabayaa Gadiidshalladiyo Cumar waa shahiid gacanka xaq daran baa dishay maleeshiyaadka uu magafe hogaanka u hayo ee booliska waxa yarka yar loogu dhagaroobay falka foosha xun loogu la kacay wali wax cadaalad iyo garsoor idin kama hayno cadaalad darri xaq darri taadi dulmi dhibaato dil iyo dhac yaan kasbanay caaq Ismaaciil xaqi cadaalad darridana waad u xaqlisay qaranko isku duuban iyo hooyadii qoran waxaan u taaganahay mar walbina u dhawaaqayagu dhagahaaga uga badanayo waxaan u haraadanahay oo u heelanahay waa cadaalad iyo garsoor dhaba iyo gacan ku dhiglayaashii oo cadaalad noo geyso intiiba waad ka gaabsatay kitaabkii aad baalaha jartayna waad baal martay anaga markaa maxaa nagu waajibay inaan ku nidho xal mahay sida xilka iska wareeji caaq Ismaaciil xal mahay sida xilka wareeji wadabuubta qayaxan ee Reejabuuti waxa Reejabuutina ka codsanaya markaad Gadiidshalladiyo Cumar maqashaan Faatixada Umar waa shahiid gacanka xaq daran baadish taa markaan ka gudbo waa Lieutenant Fuad Yusuf Ali laba xidiglaha duuliyaha ciidamada cirka laba xidigle Fuad Yusuf Ali wadanigi dhaladka hay Reejabuuti meel aan ogahay aad ku haysato ilaa saaca aan kula hadlayo damiir leeyda dad xumanimada caaqnimada waxba aday ku soo hoydaan inaan ka yaree caruurta ah ee ilmahaaga la daa ayaad sida ugu meeraysanaysaa oo u diidan tahay inuu soo baxo leedahay waan haysan awoodaydan tus awooda Ilaahay weeyaan awoodda Ilaahay caaq Ismaaciil waxba ka qaadi maysid gaajo ku fadhiya xanuun buu ku fadhiya dulli buu ku fadhiya silic buu ku fadhiya torture baa u dheer dib baa u dheer qoryeyn baa u dheer ad maalin walba su'aal iyo jawaab aad ka baaraysiin maan garanaynaa deesdeestan baad ku sii wadiinood ka soo wadiin ma baasiil baad ka baaraysiin ma dhayman baad ka baaraysiin maxaad ka baaraysiin oo la inigu sheegay ilmahan yar eed haysatiin laakiin idinka ku dambayn adaa ku dambayno waxa la yiri Soomaalidu waxay tidaahaa nin badan oo ismahadiyay qariyay ku dambeeyay arkay qariyay baad ku dambayna caaq Ismaaciilow Fuad dadkii wuu ku baray fagaarihiina wuu ku keenay caalamkuna indha gaar uu kugu leeyahay indha gaar lagugu eegaya tooshash basa lagugu haya waligaaba silsilba waligaaba dhuumaalayso oo dhuumadhuumow daaradaada ku dhex ciyaar qabalku markuu dhaco dhuumadhuumow baad ciyaarta who cares iska ciyaar dhuumadhuumow macaan naga galaadiya taa baraleel albaabada dabadiisa iyo kabadhada ku kala dhuunta way kan sidii ciyaalkii la waqtigeed wada ciyaaraysan wad caruurowdeen hadeeda aqli meesha ma jire aqli toosan oo talinayo suubanay haduu dalkan u talinayo waxaasiba dalkiyo dadkaba kama dhaceen dhibtaaba looma geysteen caruurta yaryar ee dibooyada lagu haysto 7 bilood iyo 8 bilood bayloodada sida loo casilayay loo dulmayo inankaan adeerka u ahaye kii isaga ahaade deemanka burnaay halkoor ku fadhiyo wihib baan hays inuu isaguna xaragoodu laafiyoodo kii dulmana ee dhibtu haysatayna aad gabood dhigto waligaaba gar ee xoo u xaglinaysay godob baad u maashay gar ee xaad u xaglinaysay wixii baa kugu cadaaday waa lagu wada bartay shamsiga sida cadceeda ayaa lagu bartay wax maanta laga hoos qaadayo oo lagu qiimeynayo Reejabuuti maanta kugu aaminayaan oo dambe ma jirto caaq Ismaaciil dalna ma jiro dadna ma jiro taa ku talagal waxa kale oo jirood naga haysata hadaad ka yar soo deen weyda anaga jeelka kala baxayna kulli waxa ku jiray baadilka ku xidhantay Fuad oo diiday in xitaa indhaha la saaro waxba jira fiha laaqiya waxbaad qarinaysiin ma nabru leeyahay intay nabru ka baaba'ayaan baad qarinaysiin oo waad soo disheen miyuuba sajirino sidii nibaad xabaalaha geyseen noo sheega runta haday tiisi gasho gacantiina uu ku dhintana waa shahiid ka hari mayno adaa u qoolan caaq Ismaaciil adaa u qoolan ku tala galtaa
lagugu dhaafi maayo markaa dee haddii aad disheen dee siiya meydka dadkii lahaa ha la aastee haddii kalena na tusa dee wuxuu ku sugan yahay xaq baa loo leeyahay in la arkee sagaaro wax muuqan doontay qarisaa aad nabruu leeyahay torture baad saarteen warkaasi aadna soo gaadhay waa inaadna tustaan sida u dhaqsaha badan inankaasi hadduu bid qabo haddii kalena dee gabood baa loo daadanayaa ee ku talagal gabood baa loo daadan oo gabood baa la tagi oo gabood baa maaragtay lagala soo bixi caruuraha iyaga waxa weeyaan taa markaan ka gudbo waxaad naga haysataa yuusuf maxamed cali gabase yuusuf maxamed cali gabase sidii baad uga daba lulataa sidii baad u haysataa sidii buu jeerta dambi uuna gelin iyo fal uuna shaqo ku lahayn ninkii abajahal maaragtay jeerta aad u xidhay eed u xalaalaysay iyo ninkii kale maaragtay marvingeeda adeerka u ahayd tallaaba duulkaa soo wada hangaraaracay iyo ciyaalkii waddanka halka aad ugu ciishay ay gabooda ugu jiraan garya magla-aan wax allaaliyo wuxuu yuusuf maxamed cali gabase sameeyeyna ma jirto kii kale doqonka ayad adeerka u ahayd ee beendaac ee halka hor fadhiya dusha sare ee wareegaya ee tag iyo tale aan lahayn cadna ahayn caanana ahayn ee meelaha meeraysanaya ee gurcadka gudaya ayaa inankaa yarna uu qoolan yahay laakiin nagiibo koo xabtu way tamhinna yuusuf maxamed cali gabasel bahtim tah koo xabtu way tamhinna taarigeen fadhinta digaaleen nidu curawu tamah koo xabtu way tamhinna waa inaad ogaataa doqon kastoo doqonkii xaafadda ah adigaa tale u dhiibto wax mooday maayilan adigiina caaq baa tahay waa isku wada number baatiin kulligiinoo dhan sawaa daraja buu yidhaha hindigu moogta sawaa daraja ayaa hindidu jidhaahaa markaa sawaa darajaad wada tihiin dee ma dad baa tihiin ma dowlad baa tihiin casaabad ummadda u badheertay inay budhcad ku haystaan baa tihiin afduub baad dalka ku haysatiin hostage baad ummadda reer jabuuti ku haysatiin ood ciisheen ood caruuraha iyagii sidaa ugu tumanaysiinood maaragtay waxaad doontiin ka yeelaysiin dee taa kaama yeelayna caaq ismaaciil waa waxa lagugu kacay ee lagugu diday ee harajaan lagu soo socdo ha dheeraate ha dhowaato maalin dhow harajaan iyadoo loo daatay indhahagaad ku arki kaarahana keen maaragtay matraysyada u dhiib bastooladaha u dhiib wax kastood hayso u dhiib waxba nagama gelin annagu qarankan waanu kacnay waanan dhacsanaynaa dhowdhowdaada iyo dhawaaqaaga iyo maaragtay isku meeraysigaaga shaqo kuma lihin qolo kaloo waxaa jirtoo tidhaaha maxaa kaa galay jabuuti madanahaaga ka raacdid maxaa kaa galay jabuuti maxaad ugu qaylina jabuuti waanu dhashay jabuuti waa dhulkaygii dee meel kale kamelihi haddaad meel kale idinku ka leedihiin laakiin anigu meel kale kamelihi oo halkaa buqcaddaa foosha xun leh ee marna diimiska lagu caayo marna dhaxareerdeeda la dhamayo ayaan anigu leeyahay inta ilaahay ka sokaysa halkaasaa i huran halkaasaa halkaygiiya inta ilaahay ka sokayso nin walbaba adduunka ilaahay meel buu dermada u dhigay de anagu reer jabuuti halkaabaa na huran marka waxaan ka xumahay qof aan jecelahoo qaali igu abaatahay magacaagasi ma sheegayo anu maxaa kaa galay jabuuti seen wax iiga gelin jabuuti sawtaydii maaha een u dhashay dee caqli xumo intaa ka badan iyo garaad xumo intaa ka badan ood ku hadli lahaydi ma jirto anaa ku maqlay dadku yay ku maqlin anaa ku maqlaye dadku yay ku maqlin maxaa jabuuti kaa galay maa dantaada ka rana anu dantaydii waan dhigay oo danta guud baan raacay dantaydii waan dhigay oo danta guud iyo dadkaygaan raacay inta ilaahay ka sokaysa abriskan iyo casaabadan iyo ciidankan iyo yurtan geesaha leh iyo yahuudan meesha fadhida inaan ummadayada ka kacsanno waan go-aan naga soo go-ay inta ilaahay ka sokaysa xusulka intuu xabaal ka sarreeyana dhawaaq dayn maayo ku kastoo ciilan iyo ku kastoo dhiban oo reer jabuutiyaba anigu waan la dhiban ilaa halka u dambaysaan la tagi hadday fu'aad tahay iyo hadday gabaso tahay iyo hadday qaar kaloo badan tahay waa la wada ciilanya curadadayadii ciil bay la wada jiifaan cadhadan kuu qabnana caaq ismaaciil oo caws la duubay ka weyn caawaan kuu sheegayaanu cadhadan kuu qabna caaq ismaaciil oo caws la duubay ka weyn hadda xasiiso ereyga xafid cadhadan kuu qabno caaq ismaaciil oo caws la duubay ka weyn waan jiqiladaana bararo waan buuxnaadee marka waa qasab inaan xaq ku hadalno idinkana ay dambiil idinku noqoto waan hadlaynaa xaqan ku hadlaynaa kilmatal xaq walow kaan mur cidaad u roon tahay male marka caruuraha iska soo daa aad ku dhagan tahay eed leeda ciidan baa diday iyo ciidan baase war ciidanku way dideen oo waa lagu dul iman oo waa laysku kaa dul qabsan oo guluculayn maysida meelaad gaadhina ilaahay baa garanay iska sii daa caruuraha aad ciishay caruuraha aad ciishaed cududda ugu faantay eed reer maahina cid kale aad diiday
aad barartay waad barartay sidaad u barartay ma garanay wax ku barariyay kibir baad la barartay adiga foorfoorsanaya suuroonaya kolba madaxa hoos u dhigaya aanti dawada journalistiyadu ku wareysanayeen su'aasha yare ka yara dhibto wad yara foorsanayso wad mishiqsanayso ilaa runtii baanad hayn xaqiiqda inaanad waajihi karayna taaba markhaatiyada qof wala runta sheegaba sidii birlabtaad ku dhigtaa wad ka dabaluta inaad tirtirtaa dadka ku tala gashna tirtiri maysid anaga adaan iska ka kor qaadayna adiga ayaa iska ka kor qaadanayo eta baralelo to proclaimay company kuleli dayacan dalkiya dadka u daran isjecel nafta saarayda ay sixirka sirmoodeesu malhaadsan in habeen seexanayna waxa xun ku foogan hey way istaqaana ticruf nafso way garanaysaa laakiin waxyaalo badan iyo dafiya durmaan badan baan soo wadnaa hada wabani tabilayna bari dhow si fiican haddii dadka la dayn waayo waa la iska kiin kor qaadi waana la iska kiin qaban reer harajaanow falku meel idin geyn maayo iyo falaqtu dadkani ilaahay bay aaminsan yihiin ana toolay waa dad xagga alleh rabbi ka xamaayadaynayo waxba sixir iyo sancad waxba naga qaadi maysiin anaga reer Jabuuti saan u horay idin ku sheegayba badda ha iloobina subax kasti markaad kacdiina salaada subax markaad ka baxdaan nin walba in yaro saxabaasuuda afka ku shuba rag iyo dumar cunug iyo ciroole gabadh iyo gamboolay xabaasuud yar subax iyo afka ku shubta waa dayran iyaga dayran waxa ay la wareegayaan dayran cirka ma gaadhnay dhulkaan cuskarnay reer Jabuuti subaxa markaad salaada tukataan nin walo iyo gabar wala iyo wiil iyo oday iyo cid walba ilaa caruuraha yaryar ee dhiqilka xabad xabaasuud afka u galiya dadka kale waaweynna in yaro dhuuba afka sida ugu shubto biyaha ka daba caba waa dayran ilaahay bay nagaga xijaabaya waxa kale oo jira oo arin kale oo fool xun baa jirta maanta Geneva UNT shir bay qabteen shirka ay qabteen arrin baa lagaga hadlayay nin wadaniya lagu dhibaateeyay baasaboorkiisi lagaga haysto la dhibaateeyay waa Khadar Cabdi Ibrahim horta waa ay Khadar inaan idin baro weeyaan Khadar waa wadani reer Jabuuti waa macallimiintii u rug cadaasanayd wadanka Jabuuti waa aqoonyahan waa qoraa waa nin u dagaalama xuquuqda aadamaha ee Jabuuti macallin buu ka ahaa waxbarashada waxa ka eriya Caaq Ismaaciil 2016 buu decree presidentiel kaga eriyay decree presidentiel buu kaga eriyay février 2016 uu waliba fonction publique-na laga masaxay taa maxaa ka horeeyay waxa ka horeeyay Khadar in ma aragtay la iska damco maruu tagay Geneva uu shir u baxay markii waxay ahay jubiye horta warqad baa loo soo qoray Jabuuti waad arki doontiin warqada waa jubiye baa la qoray 24keedii 2018 safaaraddeena Geneva ayaa loo soo qoray si ay wasaaradda arrimaha dibadda ugu tabiso ninka la yiraahdo Maxamuud Cali Yuusuf qoslaayo dulka daahir kiina madaxweynuhu u tabiyay wala jawaab wala su'aal ninka baasaboorkiisii baa laga qaatay waxa laga qaatay bisha 15keedii Abriil 2018 markii uu maartay shir u baxay Geneva Abriil uu tagay 9keedii 12kii Abriil 2018 shir buu tagay maalintu sida u soo noqday aqalkiisii lagu daatay haddii lagu daatay baasaboorkii laga qaatay dacwad laguma dhigin lama ashkatay waxba lama baasaboorkii baa qirdhib waa curiyaamis aad iska arkaysiin waa muxuu ninkaas dhaqdhaqaaq u sameeyo xuquuqda bini'aadamaha ugu hadlaya waa muxuu cilmiga inta leeg Ilaahay u siiyay wuu barta rabbi baa siiyay waa wadani dhalado reer Jabuuti baasaboorka isaga la Caaq Ismaaciil mediateerku u qoray prokureerku u qoray cid walba warqad u qoray waxii oo dhan markii la soo gunaanaday iyo gabagabadii maxaa la iskugu yimiday Caaqa haystaa leeyahay baasaboorka Caaq Ismaaciil baa haystaa leeyahay oo muxuu haystaa waa su'aal iyo jawaab dacwadii waxay socoto saakay Geneva ka wiiday waanad maqli doontiino ceebtiisii baa iftay adduunkii waa ka hadda firotanna ha yidhaaho waa been waxay sheegayaan inala dhageysta bal and Horn of Africa Human Rights Defenders Project.
Merci. Monsieur le vice-président, Madame la sous-secrétaire générale, nous vous remercions pour la lumière faite par le rapport du secrétaire général sur les représailles. Dans certains pays, punir ceux qui cherchent à coopérer avec le système onusien est une politique délibérée, conçue pour réduire les défenseurs des droits humains au silence. Comme le rapport l'indique, une répétition d'incidents peut être le signe de modes de comportement. 2 pays africains se trouvent sur cette liste de la honte, le Burundi et l'Égypte. Nous déplorons également le fait que le Soudan du Sud soit mentionné dans le rapport. Monsieur le vice-président, nous souhaitons attirer l'attention du Conseil sur un cas non résolu. À Djibouti, Kadar Abdi Ibrahim est soumis à des représailles prolongées pour sa participation aux précessions de l'EPU en avril 2018. 2 jours après son retour, il a été brièvement détenu et a vu son passeport être confisqué par des agents du SDS. 2 ans et demi plus tard, malgré des démarches auprès du procureur, du médiateur et de la Commission nationale, son passeport reste aux mains du SDS. D'après certains interlocuteurs, il est même détenu par la présidence. La présence continue de Djibouti dans le rapport jette une lumière crue sur l'une des crises des droits humains de la Corne de l'Afrique. Nous exhortons les autorités djiboutiennes et celles des pays susmentionnés à mettre un terme à tout acte d'intimidation et de représailles à l'encontre des acteurs de la société civile. Merci. Vous êtes sur la liste de la honte, represaiga dadka droit de l'homme iyo maaragtay droit humain-ga u hadlaya inaad baasaboorradooda ka qaadatood birlab ku noqoto waxay mustaxiil waa la yaabay afkaaga aanu shalay maxaan kula afkaa gacanta lagaa saaraa marka dhulkaa lagugu arko dee waa kan miyaan ogaa inay saaka janeen fadhiisanayso dee wakaa khadar cabdi ibraahim xaalkiisii soo baxay qaar kaloo badan warqadahoodii way kuu yimaadeen wayna noo iman doonaan waana ka hadlaynaa marka waqtigeedii la gaadho arrinka fuaad waa lagaala hadlay warqadii waa lagu soo diray waana sugaynaa jawaabta aad ku jawaabto halkan waxaad ka arki doontiin warqadaha jawaabta beenta ay sheegeen ay ka jawaabeen annagu waxa aan u keenaynaa maqal iyo muuqaal inay ummadayadu ogaato inaanaan dowlad haysan inaanay dowladi meesha ka jirin in saasaankii dowladnimo laga baxay oy casaabo tahay oy burcad yihiin inaad nala aragtaan ood nala yaqiinsataan ood fadhiga ka kacdaan baa xaqiiqa reer Jabuuti khadar cabdi ibraahim wuxuu dhimay wax ku sameeyay xisbiga model buu kamid yahay model waa kuwa halka ku fadhiistay ee wajaqaha ka qaatay waa aqoonyahan waa indhargarad waa culimada yadii annaga madaxa noo saarayin model annaga jecel waa caruurtii wadanka damqatay dhiidhiday dulmiga diiday tawaadiga firdhiyay ay kaaga yaaceen dhulka qaarkood qaarna waadiga aqalka halkan ku haysta waa kan dekanoo miidan miskiinkan haye khadar cabdi ibraahim baasaboorka isagiyo TX baad ka wada qaadeen TX waad siisay isaga maxaad ugu dhagantahay de isaguna muuna wadani ahayn muuna dhulka ku dhalan muuna nin reer Jabuuti ahayn maxaa keenay inaad ilaa maanta baasaboorkiisa ka daba lulato waa su'aasha adiga ku taala adduunkiina kugu cambaareeyay lagugu arkay ceebta inta leeg iyo foolxumada inta leeg wuxuu helay brief uu helay inuu yahay défenseur des droits maaragtay humain en 2020 mars ayuu helay brigiisi uu doonan kari waay Kampala Uganda ile passport ma haysto wuxuu ku baxay bilad dahab uu helay uu doonan lahaa Uganda ka doonan lahaa ninkaasi xaquuq la'aan baa shaqadiisa uga eriday may inuu Genève ku noqday ahayd 2018 waad ka xarinta uu bixi kari waay waxa soo dhan qofkii wax garad ah ee aqoon leh ee dhaqdhaqaaq sameeyay dadkiisa iyo dalkiisa u damqada dhibaatadu aragtaa adu markaas aad tirahaa hadii aniga la taabtay calanka iyo dalka la taabtay see loo taaban calanku waa calanka dalkuna waa dalka adiguna waxa tahay siyaasi yimiday oo beenaala ah oo dalkan iyo dadkan ba hostage ku haysta calanka annaga le dalkana annaga le adigana annaga xilka ku dhiibana waana ka xayuubinayna no more maaragtay caaq Ismaaciil waad ka socon midda kale khadar cabdi ibraahim macalinkiina kaaga caynaasho u dhigay maaha aqalka ugu imanayay de haduu inaan kaagu maaragtay aflixi waayay ma isaga dambiga leh xasan saciid kuwiisu u dhigay haday wada aflixi waayeen de waxay la aflixi waayeen waa waxaad umada ka gasheen de dib iskugu noqdo bal isweydiiya ha kuwiinana iyagoon degree maaragtay diploma lahayn baad meesha u sareysa dalka ku casuntiin kuwii dhulka wax u soo bartayna sidaas aad u indhatiraysa marka aan ku leeyahay aqoontii baad indhaha ka riday de waa taa maanta UN ku sheegtay maana ku sheegay de dhawaaqi meel walbuu gaaray arrinka fuaadna waa lagaala hadlay isagana maalintiisa marka sidaa loo fadhiisto waa lagu horkeenay caaq Ismaaciil weligaaba isdiidsi gadiijo waad ogtahay waa dafiraysa laakiin cudun soo dirimka soo gurgurto darwaada loon baan hayhay waa la sugayaa
hakiyaad beenta ku soo raraysay ee maxay darwaada loomka u fadhiyaa iyo xuquuqal insaanka idinkaaba dusha kaga dhacay oo rigaystay ma xuquuqal insaan iyo xaq baa jira Jabuuti inanka yar ee miskiinka ee Khadar Cabdi Ibrahim baasaboorka isagaa leh waa wixii siisay son document de voyage titre de voyage kiisii weeyaan xaq buu u leeyahay baasaboorkiisa kii walaalka ahaa ee fadhiyay Mareykanka Allah u naxariistay muxuu ahaa colhaye baasaboorkii Cabdiraxmaan Bashiir Sheekh sidoo u haystay buu ku socday habeen aakhiro u keenide hadii Ilaahay yiraaho maalinta la qatay la qaawan yahay qiilad ku baxdaana uu meesha ool ayaad la soo wada gurguran doontii waxa aad umada ka galaysaan adduunkana waa idin halaaga aakhirana waa naarul jahiima taawad wada ogtii waanad ku seexataa waanad ku soo toostaan dadka xaqooga iyo waxoogaad ku dhageysay waa baasaboorada ma idin kaale sharciyada ma idin kaale dadkani way u dhasheen kuwa aan dhulkan ahayn oo shaqo kula Saoudiga ku casuumadeynaya ee u sul dhabaaleynaya ee maantada aan kula hadlayo maaradu meeshii maxay ahayd dameer joog iyo duuda kii aad wax u ahayd Kuba kii Kuba lahayd afka meeruuga alaha ee halka hor fadhiyay daaradiisii soo baasaboorkii iyo kaararkii lagu bixinayo haye dadkaasi xagee ka yimaadeen ma Jabuuti bay u dhasheen si Jabuuti shaqo ku leeyihiin de waad ogtay caaq Ismaaciil ha dariska inaad u sul dhabaalayso tirkaalaya footeeya kaalaya sida sameeya dadkii wadanka u dhashayna waxoogii baad ka haysataa oo diidays waxa la wixii xaq jirahay waxa la wixii musiibo ahaana waad siisay dadkii xaq u lahaa ee wadanka wax ku soo biirinaya ee iftiinkii indhaha u ahaa reer Jabuutina waadiga Khadar Cabdi Ibrahim oo meeran u diidaya de Khadar Cabdi Ibrahim ma qabiyaalad baad uga haysataa baasaboorka de abtina uu ku yeelay naaska ku qabanne de hay'adda warantaana maxaad nooran Cabdiraxmaan X waad siisay isna siide baasaboorkiisa ila labaduba waa laba nin oo mucaarado ku nacay labaduba sakay ka qabsadeen ma de si baasaboorkiisa isna maxaad ugu dhagan tahay maxaad qabiyaalada iyo qurunka adiga beeray oo falkay oo noo keenay markaad afartii wax ku ahayd hareeraha intaad iska dhigtay tir dalkan inaga la istiraahay laakiin maliidin waa beenta hadde dalkan madar reer Jabuuti baale waana laga kacsan waana laga qaadan waana lagugula xisaabtami xoolaha aad afarta beeni garjo ku daadiseen sidii saloolka idinkuna kadban maysiin kuwii lahaaba ka gaajoonay oo ka cawlan marka Khadar Cabdi Ibrahim haduu model yahay oo dhamac kugu noqday xisbiga model ay kugu noqdeen dhamac iyo dhimbil dhamaanta iyo dhamac iyo dhimbil baa kugu nahay model xaq bay ku hadlayaan xaq bay ku joogan waa indheer garadkii rag iyo dumar umada reer Jabuuti ma aha wax dibadda ka yimid ma aha kuwa aad sidaa doonto ka yeeli karayso horay ku diidan waa culimadana waa taqaana qiimaheeda iyo sharafteeda laakiin adigu waa halkeed kaga soo hadhay culimadii awde soo deesay loolka firdhiyay ee culimo kalena u yeedhanay kaalay ay wacdiya lahaa si waxaad adigu bilaa culimo tahay de kuwani kuma indha buuxinayaan runta ku sheegayaan de runta ku sheegayaan annagoo dhan baa runta ku sheegayna annagoo dhan baa ka hornimidna kuma rabno xal ma haysida xilka wareejiyo iska soco xilka wareeji xal ma haysida annaga kule caawiya bariba waan ku leeyahay kaaga mana harayo antana waad maqli doontiin warqadahana etaab baan idinku soo dhigayaa paashka reer Jabuuti ku quusta inaan waxba ahayn wata daliilkeegii wuxuu meesha iskugu nabayaa uu maartay kursigan ugu dhagan yahay uu og yahay adduunka inay maxkamado ku socdaan yidri yiclam uu og yahay in hoostiisa la fadhiyo la sugayo wala sidii Milosevic baa lagu qaadan waa lagu soo socdaa waad ogtahay garankii yaraayo orashka hay Norweegana waa lagu xiray it's up to you de anaga maxaa naga galay hana laga ka qaado culaysin baad nagala tagi dhibin baad nagala tagi hagardaamo baad nagala tagi aad carruurtayada iyo dalkayaga iyo dadkayagaba ku ciishay iska soco nadaaf waxba nooma haysida nadaaf aniga markay dhiliya dhibaato jirto markuu qof wadani ciilan yahay maalin walba waad maqlayani saacad baad maqli second baad maqli markay dhibtu jirto aniga waadi arki waadi maqli waa ku sheegan caaq Ismaaciil indha laga baqaanay Ilaahay bay ku yaaliin wax allaaliyo waxa tahayna ma jirto maanta adaa dadka u liito u hooseeya waayo halka aad isdhigtay ayaan annaguna ku sii turfaynayna kuma baahninte dalka halka aad geysay waad arkaysaa sankana waan ka qabalay taa baraleeda kaararka ay bixinayso iyo waxa ay qayla dhaan dirtay bal waxa ku keenaan ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa dalkan iyo dhulkan dad bi Ilaahay darmada u dhigay anagu aborigeen maniina daar reer Jabuuti nahay dhagaha fur caalamkana waanu sheegnay in waraaqaha lagu bixinayo duudiyo dameer joog in waraaqaha lagala talaabay saylac iyo halka hor la geeyay maxay ahayd lug haye meel walba waa sheegnay ilaa xamar baa la geeyay waraaqadihii
kii muxuu ahaayey belalo ee safiir baan ka dhigtay tiri sidaa unu meeraysanay muxuu la meeraysan uu Soomaali u dhex suqlayn muxuu la meeraysan uu raadinaya Soomaali maadaa raba waad kala qaado waad kala geysay Soomaalida aad rabteed isku talayso waatee Soomaalida aad kolba mid maartay dhagta wax ugu sheegaysaa isku soofayso ee warmaha isku sita kuwaagii baad isku soofayso kuwaana waad u tagtay dama meel baad u roontahay fidnada iyo dibta iyo maartay kala geynta adaa noo keenay Allah u naxariistay 29kii waadiga Xasan Guuleed halka ku dhagay kama tagi kartid markuu doonayay inuu iska socdo waadiga habeen walba bastoolada ku qabanayay inaan ku ogeyn baad moodi maanta dadka u sheegaya Allah u naxariistay markuu doonayay inuu iska socdo uu yiri aniga way iga dhantay ka socon maysid baad tidhi la dambaad lahaydoo wixii dhulkan lahaa ee kuraasidan kaaga horeeyay baad xaaqaysood qalinkiisa ku meel marinaysay odayga hostage baad u haysatay Allah u naxariistay hostage baad u haysatay adna maanta tiibaad ku jirtaade waa ka maanta lagu haystay la doonay in lagu gul maamusho wixii aad dhigatay weeyaade Allah u naxariistay waa ka maanta adigii baa laga sii talaabsaday oo laga soo talaabsaday oo inaanad waxba ahayn lagu tusay oo dalka sidii la doonayo laga yeelay maalkiisa iyo xoolihiisa iyo wixiisa waa ka maanta laakiin Xasan Guuleed Allah u naxariistay dalkan oo buuxo camiran oo wax walba yaalin buu ka tagay adigu sadalkiyo sabaan mansuure aad ka tagaysaa oo doonaysa inaad kala dirto oo kala firdhiso kala firdhin maysid Allah u naxariistay islaantiisa Caasha Boqorre Ilaahay naxariisteedii janna Allah ka hadiis maxaad ku samayseen dhabicidi baad ugu darteen habeenka aakhira lagu weydiintay dadkeeduna way kugu la xisaabtamayaan waa lagu sugayaa sidoo kuugu maalay ugu maad hanbeen Xasan Guuleed abtidoon Allah u naxariistay ugu maad hanbeentay marka ayaad abaal u haysaa ayade sheeg abalaaw sheeg bisadu saxnigay ku cuntay ku xaartaa Caaq Ismaaciil kiibaad ku noqotay umada reer Jabuuti marka xoolahan aad ku faanayso iyo maalkan aad ku faanayso iyo waxan aad leedahay anaale beenaale faajiraata xageed ku haysatay xageed ka keentay shalay markaan calanka qaadana aqalka xuna aan gaaladeyn buu ahaayo wali maad wada dhameyn adiga kana waqtiga ka dhigtay horta lacagtiisii ma bixisay baa ka horeys waa su'aal meesha taale anaga dhagaxya nagu soo daadid waxa doonto nagu samee haba nagu ma sameyn kartid anaga xaqiiqdan ku sheegaynaa marka umada reer Jabuuti inta aad ismarisay dhiigooda cabtay waad ogtahay waana lagu la xisaabtamay caruurihii cilmiga lahaa ee aqoonta lahaana waadiga doonaya inay waashaan oo baasaboorradoodii ka xireysanaya laakiin caqiiday leeyihiin model caqiiday leedahay model waa culimada wadanka waa badbaadada qaranka weeyaan waa hanti qaran model waa dadka yagii annagayna xoreynayaan inaga ka kor qaadayaan dhamaantayana waan isku duubanahay mid baan nahay na kala qaadqaadi maysi kana kala qaadqaadaye dadka yagii kala qaybiyo qowleystuhu ha dhaco macajaaba ku aastaan kuma heesin waana xaq maanta aan joognaa sheekada kana kala qaadqaadaye dadka yagii kala qaybiyo qowleystuhu ha dhaco waa idinka qowleysataad wadatiin casaabad baatihiin marka iska siidaa inanka yar baasaboorkiisa si Khadar Cabdi Ibrahim si baasaboorkiisa antuna way kula hadashay cid walbina way kula hadashay meel ad sida reed u dhigta male annaga marag hadii naloo yahay maanta oo adduunkii fahmay oo nalal ka arkay horta guul baan joognaa reer Jabuuti guul baan joognaa way idinka arkay anti maanta dhagihiina ku maqla inay antu la hadashay liiskii maartay liiskii ontkaad ku jirtaa waxaad ku jirtaa faylkii dadka laga xishoonayo shalay ma kula afka gacanta laga qabsanay dawaka Ilaahay soo dhaweeyay xaq baan ku hadlayaa dadkaasaan maartay u hadlayaa dadkayga eed ku haysato xabsi hawada ka furan marxaatigeedina waa ka baasaboorradoodii iyo waxoogii aad ka haysato marka iska sii Khadar Cabdi Ibrahim baasaboorkiisa xaq buu leeyahay isaga leh waa wadani dhalade maxaa aad u haysataa soodiga siiyaba kuwa xaq jirka ee kii maartay ay magafe balaqo uu iibgeeyo uu xaq jirka oo dhan siiyo ma idinka xishoon kara kulligiina oo dhan liiska waad ku jirtiin argagixisada waa laynina og yahay waa laynina qaban laakiin reer Jabuuti aan mid baan sheegaya fadhigaan ka kacno dalkeena aan dhacsano inagoo midoo isku duuban kuwan ma arkaysi rajo male iyaga inaga baqayo babisa ku dhacday babisaduna waxay ugu dhacday gashi bay wada qabaan dhiig bay wada qabaan dhagar bay wada qabaan marka ayaynaan madaxa hoos u dhiginay aan kacno kor aan u kacno aan kacno sarakaca sino sarakaca aan sinaanay sarakaca oo fadhiga ka kaca oo calankan iyo ciidan iyo dhulkan inaga leh ka kaca fadhiga ay goonida u yeesheen ay doonayaan inay inaga gaajay nagu xukumaan ka yeeli mayno waan diidnay kuma doonayno
dulmigaan diidnay cadaalad baan doonaynaa way xidhan yihiin way dhiban yihiin baasaboorradoodii baad ka haystaa xaq iyo xaquuq la-aan baad decree presidential kaga eriday khadar maaragtay aad shaqadiisii kaga eriday isagoo 18 sannadood macallin waxbarashada ka ahaa markii dambena professeur d'université ah ayaad xaq iyo xaquuq la-aan 2016 février decree presidential kaga eriday ood weliba fonction publicina ka masaxatay go-aankii oo dhanna noqday inaad adu baasaboorkii haysato jaraa'idkan uu qorayo ee afafka badan lagu turjumayana dhabaaladan baa ku dhibay waan ogahay uu qorayo ee afafka badan lagu turjumayo ayaa nabar kugu noqday dee xaqiiqdu ka hadlaya waa wax jira dee xageed noo xabeebin ee dhagaha iskaga furayn waa wax jira wuxuu qorayo ee adduunka u riyaaqeen ee la turjumayo caaq Ismaaciil marka maxaad leedahay iskaga kacde waa lagu nacaye nacbaa ka buuxa reer Jabuuti way ku naceen waxba yaan lagu sheegin oo been lagu sheegin waxba yaan lagu oran waa lagu rabaa way dhamaatay taasi waa lagu bartay ku bartay oo kuma daayo iyo ku bartay oo kuma noqonayna no more caaq Ismaaciil iska soco caaqnimadaadina waka inaad ku hal adag tahay inan ka yar baasaboorkiisa caaqnimaday ka mid tahay inaad ku hal adag tahay Fuaad inuu gabood ku jiro caaqnimaday ka tahay inaad ku hal adag tahay gabasha inuu gabood ku jiro caaqnimaday ka mid tahay waa hal adayga dibta adoo qofka ku haya aana dareensanayn caaq baa tahay caawa tahay oo berri baa tahay oo mar walbaad caaq tahay oon kuleeyahay waan ogahay nabarka inay kugu tahay kelmadda caaq laakiin waad mutaysatay inaan ku idhaaho waad mutaysatay caruurahan aad ciisheed dhibayso dee waa kuwa yagii annagaa u damqanaynu jiirku noogu yaala kana hadhi mayno waxaan salaamayaa ummadda reer Jabuuti daliya dibad waan dulmannahay waan ciilannahay waan dhibanahay laakiin waqti dhow baa yimiday zaman baa isbedelaya isbedel baa soo socda qiimiya qaayaloon ku wada intifaacsan doono reer Jabuuti yaan la rajabeelin yaan la moral jabin anu intaasaan idin leeyahay hankeenu ha dhaafo caaq Ismaaciil aan tashano ciidan iyo calankan inaga le inta Ilaahay ka sokaysa marka inagoo reer Jabuuti waxayna aanu kacno way jiraan 4 danaystiyo 4 dhadhama raac oo inagu dhex milmay oo waliba qaarkood mucaarad inala sheeganayaan waa ceebta taalade waa ceebta taala kuwaana iyaga dan u waaya arkiyo ina soo raaci inta aanan ka bixin arrin baan ku soo xirayaa aan baraha bulshada ka arkay waxaan arkay mucaarad googaciga laysanaya waxaan arkay mucaarad iska dabalusha waxaan arkay mucaarad waqtigan maanta aan joogno warma waqtigii aad isqabqabsan lahaydeen ba mise waqtigii aynu dhan iskugu bayri lahaynayno aynu iska dulqaadi lahayn dulmigan iyo dhibtan ina haysata mucaarad axsaabta mucaaradkan sheegaya ee googaciga laysanaysa iswada haysata war waa sidee xageed ku socotiin marka waxa halka iga muuqatay malaha mucaarad ma tihiin ma dhabarka la idinka wada taabtay de sidani mucaarad ma aha nin mucaarada inuu soo dhaweeyo garabkiisa ahaado weeyaan nin mucaarada inay istiirsadaan ay gacan mida noqdaan weey xagee la idinka dardaro waxay say wax u jiraan mucaarad axsaabta mucaaradkan sheegaya war haddaydan dadka waxba u hayn dee noo sheega waan tashanay anagu reer Jabuutina waxaan u sheegayaa bulshada rayidka ceelna inooma qodna cidna inooma maqna ilaahay mooyaane inagaa tashanayna hadday axsaabtii mucaaradkuba taa la yimaadeen maanta iyadoo kala guur lagu jiro isqabqabsiyo googaciga lays isku marinayaan baraha bulshada waxaan leeyahay shame on them ceebbaad ka qaadeen laakiin anagu bulshadii rayidka haddaan nahay waan tashanaynaa garabka iyagaan idinka filaynay sidan idinkamaanaan filayn inaad googaciga laysataan oo laba aad isku qabsataan iyadoo dalku xaalka uu marayo iyo dadkeenu marxaladda ay ku jiraan idinkoo u jeeda shame on you baan leeyahay dhammaantiinba ceeb waa wax laga xishoodo waayo isaga ku seeta dheeraysanaya isqabqabsigiina isagay guul u tahay isqabqabsigiinu laakiin inagoo midoo isku duubani isagay nabar ku tahay marka waxaan idin sheegayaa mucaaradow ka waantooba waxa aad ku jirtaan ka waantooba oo isdaaya hadafkiinu mid ha noqdo hadafkeenu waa maxay waa inagoo dalkeena dhibta ka kor qaadno waar kursiga iyo loolanka waqtigiisa waa la gaari ninkii nool qofka ay reer Jabuuti u gartaan inuu iyaga maaragtay danahooga ka shaqeynayo ay iyagu u gartaan ayaa la dooran caaq Ismaaciil baa lagu wareejiyaa annagana nagu wareejiya de sheekadu ma noqonayso mucaaradow
mucaarada doorasho xoro xalaala dhici haddii ammaanada la hayo ninkii u qalma ee mutaystay reer Jabuuti codkooga siiyaan unbaa ku soo baxaya kursiga baabkii maaragtay afduubkii waa laga baxay marka idinkuna cagta ha noo qabanina Caaq Ismaaciil ha noo qabanina cagta Caaq Ismaaciil annagu Caaq Ismaaciil geed baan ku xidhnay sideed idinku maanta isku qabsanaysaan oo googacay galaysanaysan ma waqtigeedii baa la joogaa ilaahay baan idinku dhaarshay rabbigii weynaayo waaxidaan idinku dhaarshay kawaan tooba waxa aad ku jirtaan shacbiga miskiinka dulman ee dhiban ee ciilan ha ku tumanina mucaaradow anu intaasaan idin faraya waxaan salaamayaa Caaq Ismaaciil oo doonaya inuu ku guuleysto inuu mucaaradka isku diro isku diri maysid annaga isku keenayna dadka yaga annaga isku keenayna annaga gacmaha isku saarayna ilaahayna waxaan ka baryayaa bogiina burcada Allah isku mariyo waayo cadow baan la dagaalamayna Caaq Ismaaciil la yiraahay ilaahay bogiina burcada ha isku mariyo waan idin ducaynayaa naga daaya dhibta intana haysataa nagu filan mucaaradow iska qabsigiina annaga nabar buu nagu yahay kuma farxayno naga joogsada waxaan salaamayaa dawladdan dhoola cadaynaysa iyadu lacagta u fadhida dawladdan dhoola cadaynaysa ee iyadu lacagta u fadhida ee damiirkoogii iyo hankoogiiba noqday maxaan cunaa maxaan qaadaa maxaan dhistaa iyagana waan ka tashanaynaa xamaamadahan baarlamaanka fadhiya maaragtay xamaamadahan weeyaan waxaana dilay ee baarlamaanka fadhiya ee maalin walbiba Caaq Ismaaciil u xaglinaya ee doorkoogii gabay ee kaalintoodii gabay iyagana waan ka tashanaynaa xamaamaduhu dambiga u weyn dalka iyaga ka galay baarlamaanka shimbiraha fadhiya ma aragteen haruurka loo daadiyo waa xamaamado xildhibaano maaha kuwani waa xamaamado xilkii loo igmaday iyo dhibtii dadkooga iyo dalkoogu marayay indhaha ka qabsaday haruurka loo daadinayo ka doorbidaya